يا غافل. warmooganow hooyada waa hooska aad ku raaxaysanayso oo aad ku nasanayso waa midka awooddaadu ku xoogsamayso hurdadeebaad ku raaxaysanaysaa adigoo ka xanaajiyay oo xumeeyay oo waliba ka hijrooday oo ka tagay hooyadaadu waa iftiinka noloshaada wallaahi haddii aad iftiinka weydo oo uu ka tago waxaad ku dhex jiraysaa mugdi haddaba haleel oo ka daba tag iftiinka inta uusan ka tagin oo aadan weynin haddaba weydii dadka waalidkooda waayeen dhibaatada ay ka mareen wallaahi ilmaha qaar ma fahansana ihsaanka iyo wanaaga ay nagu leeyihiin labada waalidkuna waa ismoogaysiinaya ilmahoodu waxay ku sameeyaan wayna ishilmaamsiinayaan cadfigooda iyo dhimrintooda waxa kamida way noo sabrayaan hooyooyin iyo aabow naga raali ahaada wallaahi waxaan ku arkay garoonka ayaan ku arkay nin duqa oo dhabarkiisu soo qalloocday boorsooyinkiisa asaga ayaa wata wiilkiisana waa uu daba socdaa uma aabayeelayo telefoon BlackBerry ah ayuu kala rogrogayaa waxaan weydiiyay kan ma waalidkaagiiba soo aabaha maaha ninkan ku hor socday boorsooyinka wada ee duqa ah الله هوجينا ما سيداس أيام والد كنا كو أول مرني الله محيه وقت ساعداس وساعداس آذن كوف كرين وآذن سمينين ونا سمينين وح إحسانه وآذن وشقين يجا وآذن وقبنين وحيو باهيين محاك هوج بدن ساعداس أذ هو يضع يوالد كاب أضعتك كرب قاضيسو وأتكحنا جنس ويكحنا قصيهم محاك هوج بدن ساعداس وكحن محاك هوج بدن ساعدا يوالد كجيفنا إيجور رالك هين ما واحد عرقلين يسوح عن معنى لهين ما واحد حمينيسا تليفون وسنكوسو قدن سببتي waxaan macna lahayn miyad wax xanaajinaysa u xumaynaysa ma waxaad uga xanaajinaysaa sababta gaari inuu san ku keenin oo san ku soo xaadirin ma waqti yar oo asxaabtaada aad la qaadanayso ayaad uga xanaajinaysaa dhowr shilimaad oo lacag inuu ku siiyo miyad u xumaynaysaa adduunyada yuu u kulminaya adiga maahan miya wuxuu u dadaalayo ee uu daalayo adiga maahan miya qofka uu dhibaatada u wajahayo soo adiga maaha meeqa ayuu daalay meeqa ayuu dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u dhididay meeqa ayuu u dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u raadiyay oo ugu hoogay shaqo adiga darta xasuuso wiilkaygiyow xasuuso waalidkaagu inuu ku jecel yahay jacayl saa'ida aad ayuu ku jecel yahay kalgacayl aad u xoogan ayuu ku qabaa maxaa yeelay waa waalidka waxa laga yaabaa waxyaabo inaad ka dalbato laakiin uu ka dibdhigo uusan hore ka siin waxaadan ogeyn ayuu og yahay waxa laga yaabaa in deyn xoogan lagu leeyahay oo awood ilaahay waxa aad ka dalbatay ama ay haystaan waxyaabo ka waaweyn waxyaabaha adiga aad ku fakarayso rabbi wuu xaaraantinimeeyay in la xumeeyo labada waalid xitaa in lagu yiraahdo kelimada uf qulubta dadka qaar waxa kamida kuwa aad u adag dhagaxa kuwa ka adag war waalidka hal ogaado sidee xalkoodu noqonaya markay weynaadaan markay da'doodu aad u weynaato sidee xalkoodu noqonaya